waxaan ku faraxsanahay in ay dhalinyaradu u soo jeesteen inay ka qayb qaataan hoggaanka iyo siyaasadda dalka taasina waxay caddaynaysaa dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan xisbiga kulmiye waxa baryahan iska daba curtay oo socday xaflado dhalinyaro oo xisbiyada si rasmi ah ugu soo biiraya marka waxaa muuqata inay containerkii ay ka soo baxeenoo hadda kadib aan qolooyinkii waaweynaanin tirsanaynin oo odhanaynin intaasaan dhalinyaro haystaa intaasaan reerkaygii ka haya hadda kadib way dhammaataan filaya intaa markaa ka imaado halkan waxaa maraya urur gurmud la yidhaahdo runtii aasaaskiisa ugu horreeyey waxaa la aasaasay 2010 ururka gurmud ujeeddadii ugu weyneeda loo aasaasayna waxaa filayaa inay tamaanta ay hoggaankiisu ugu soo biiriyaan xisbiga kulmiye ay tahay waayo waxay ahayd marka laga hadlayo urur ka qayb qaadanaya arrimaha dhaqan-dhaqaale ee ummadeed shayga ugu weyn ay taabanaysaa waxa weeyaan waa in talada ummadda la toosiyo marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa inaan isla qaadanay fikirkaa inay xisbiga kulmiye ay yimaadaan oo xoogooda iyo xoolahooda iyo cududoodaba ay geliyaan xisbiga kulmiye aad baan uga mahadnaqayaa runtii waxaan hal qodob baan ku darayaa waqtigoo kooban awgii waxaa leeyahay 1959kii waxaa jiray waqtigii ay saddexdii xisbiye SNL AUF iyo ay jireen USB doorashadii waqtigaa la galay 1959 saddex kursi ee xilligaa jiray waxaa ku guulaystay xisbigii SNL sababtii ku guulaystay wax kale maahayne waxay midoobeen 1959kii USB iyo SNL baa midoobay deetana xisbigii UF ku soo haray kursi ninkii garanaya waxaa soo yahay maanta waxaan aaminsannahay reer boolame inay ahaayeen isku boodadii USB iyaga fikirka lahaa oo la ascaaro tagay maanta na waxay muuqataa in halkan laga bilaabay oo baashasta loo wadayo waa maalinteedii waa ogtii qiimo ay taasiidi yeelato markaan la ascaano tagno waxaan dhahnaa USB bana waana laga ixtiraamaa waa bal halkanna macaankayga soomaalida waxaan tiraahdaa oo baab ka dhow farta ku xigtaa lagu kabaa sawirkaasna uu ka muuqdaa maanta halkaa ragga fadhiya waxaa hareeraha ka fadhiya muuse biix cabdi maxamed cabdilaahi awleya maxamuud sheekh cabdilaahi wasiirkii boosaha waxaa fadhiya gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga waa garaadkii waxa weeyaan waa taleex waxa weeye sayid maxamed cabdallah xasan iyo halkii gobonnimada waa nimankii USB-ga sheegay maanta halkaasay fadhidaa USB-na waana la galbeedeynayaa barigiina waxay yidhahdeen maanta halkii SNL baa la joogaa SNL baa la joogaa